mid aad iyo aad u xasaasi ah isla markaana aan idinkugu soo gudbin doono akhbaaraadkii ugu dambeeyay dagaalada ka soconaya gudaha Itoobiya go'aanka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo halka xaalku marayo diyaarado drones ah oo duqeymad bilaabay iyo Abiy Ahmed oo jiida hore ee furimaha dagaalka Itoobiya xilligan sheegay inuu ka dagaalami doono aan ku bilaabay xilligan waxa aad u sii xoogeysanaya dagaalada ka soconaya gudaha Itoobiya iyada oo saacadihii la soo dhaafay dagaalku uu aad u sii xoogeystay Abiy Ahmed ayaa waxa uu yiri aan ku kulano furinta hore ee dagaalka Tigray aan ku kulano furinta hore ee dagaalka oo ula jeedo dhammaan ciidamada waa inay tagaan furimaha hore ee dagaalka maalintii shalay ahayd 10,000 oo kamid ah ciidamadii booliiska ayaa la geeyay meesha dagaalku ka socdo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sheegay inuu haatan uu hogaaminayo ciidamada militariga isla markaana uu tagayo jiida hore ee dagaalka xilli uu dalkaasi ka socdo dagaalka u dhaxeeya fallaagada Tigray iyo ciidamada dawladda